بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أو وناكسن أخيارته أصحابته قالق قيمها إيه قدر أنت بدل ملك صودا فيها دنيا ذات كجوكتين وقتية كلا جدون آد كوكلا سجنتهن برتني وبرتي آلا بأن اسكوي من جرنا على دقن هذا نقول عصبتين صودا وهذا هدي أدنى لجوكتين ونيجم هذا علنا لجوجين إيوه دي رجالتين نبه أنت أمرك لقي ما دوحنا ربعنا كله وداقو تولو عصب أما مجاله عصب نبسوا يقانو waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol tuuladan maanta ka hor in aanad arkin in ayna jirin qof kale oo soo duubay ama se la soo wadaagay umada ama tusay umada tuuladan iyada ah waxaan rabaa inaan ku tuso halka ay ku taalo dadka ku nool nolol maalmeedkoodu waxa uu ku tiirsan yahay xoolo dhaqato beeraleyda mise xoolo dhaqato waxaan rabaa in aan ku dulgeeyo كتوصو فيديو وليبا قرضة عن كدوبني تولدن وحي كتالا دقمدا إرر أي كتالا وحا ودحيسا دردبه إيو إرر أي ودحيسا مركا لغا صوبها دردبه لصومر هورسا أيا لصوغا مقالة عاد وحا كنول داد نلوشودو أي كتير سنتهاي بيرلي إيو حول رقاتو داد وحصو صار له كتاشدا مروقوغا إلهينا تلسارتا أيا كنول تولدن waxyaabo badan ayay soo saaraan sida ambada liinta iyo bahalkii umada lagu itxaamay ee aha qaado oo dhaaf qaadkii tuuladan waxa la yiraahdaa magaalo cad baa la yiraahdaa tuuladan guryaha hadda inii muuqda ee cad waa dadkii ka soo barakacay buur madow ama se gobolka deegaanka oromada Soomaalida ku dhex noolayd ee ka soo barakacday intii la laayay maahin haraagi ayaa halkan la soo dajiyay guryaha dhagaxdeed arkaysiin baa loo bilaabay in loo dhiso laakiin macal asaf waa kuwaas iyagu hadeeta iska dudumaya magaalada yarna wataas ka horeysa sababtaas ayaa loo yiraahdaa magaalo cad buuro ayay ku dhaxtaalaa marka aad jiirida ka soo baxdid ayay jiingadihii ku soo qabanaysaa baa loo yiri baan filayaa cid garanaysa iga fardhuudhuban ayaa inala wadaagi doonta sababta loogu bixiyo magaalo cad siday doontaba ahaato magaalo cad waxay kamid tahay tuulooyinka ka tirsan degmada Erer ee gobolka City saani sheegay waxay u dhaxaysaa tuulada Hoorsa oo caan ah oo Itoobiya oo dhan ay yaqaanin ama halka ciidanka ugu weyn ee Itoobiya uu degan yahay ah Hoorsa iyo Erer ayay u dhaxaysaa marka dirraba la tagayna waa la sii maray laga yimaado Biki iyo Erer laga yimaado marka dirraba laga baxo ee la sii tagayo sidaas degmada Biki iyo degmada Erer iyo ilaa iyo galbeedka marka loo sii baxayo intan ayaa la maraa dadka ku nool saani sheegay waa xoolo dhaqato beeraley weeyaan wax badan ayayna soo saaraan beerahooga waxa ka soo baxa sida liinta qudrada noocyadeeda kala duwan iyo qaado oo dhaafkii oo qaadkii ah mar aan booqanay ama aan tagnay ayaa aan rabay inaan inituso oo ay nila wadaago waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol yani boqolkiiba 90 ma boqolkiiba boqol maanta ka hor ina aanad arkin magaalo cad iyo waxa ay tahay iyo halka ay ku taalo sababtaaba aniguba u jeclaystay in aan nila wadaago إن شاء الله وحنا ربا إن أن تولوين بدن يا مجالوين بدن عن صور دمينو إنتن ديتنا عن جذوبنه عن أسي جذوبنه محل يرهداي إلا إيوه سلل مركز عن صور دميننا وحنا نجود بين جمهورية بركة سنيد جمهورية جيبوتي أيان إن الجسوا وذاك دون هادو إلى هاي رادو مجالو إيوه دقمو إيوه قبل هادو إلى هاي ورالي كنهضو sida darteed magaaladan iyada ah ama tuuladan waxa la yiraahdaa magaalo cad dadku waa dad isku tashtay gacmaha isqabsaday dadaalay ilaahay aaminay in ay wax soo saaraan oo dhulka wax kala soo baxaan say wali u qaabka ay u dhisan tahay u socdaan moosaska biyaha adiga la tacajabi waa kugu hambalyeynaya tuuladan iyada ah dadkaasi waa dadkii laga soo barakiciyay weeyaan dadkii laga soo barakiciyay ee ku noolaa
deegaanka oromada ama dowlad deegaanka Oromiya ku dhaxnoolaa weeyaan wad xasuusatiin meelo badan in dadka Soomaaliyeed ay ka soo barakaceen oo laga soo saaray marka dadkii laga soo saaray halkaas waa halkii la dajiyay weeyaan marka guryaha cadcad ee darkaysiin waa guryaha shiraacyada ay hadda iyagu ay degan yihiin guryaha dhagaxyada ee ka dambeeyana waxa loogu talagalay in loo dhiso laakiin macal asaf waa la taagay sidii ayuu maxaa la ku daateen oo ay ku baaba'ayeen wad u jeedin in ay sidaas ay u baaba'ayeen bilaajinkada yihiin bila albaaba ay yihiin waliba marka dhaxdigtid in badan oo iska burburtay oo iska duntay way jirtaa Soomaalida waxay tiraadaan ninkiisu cunayo ama ninkiisu dilay qaylo male marka waxaan aaminsanahay boqolkiiba dadkeena inay cuneen oo sida u galeen dadkaas in ay bacaha hoos galaan sida doontaba ha ahaato inta ma rabay inaan la wadaago magaalo cad iska barta waxay ka tirsan tahay ama waxay ka mid tahay dhulkeena ayay ka mid tahay tuulooyinkeena ama magaalooyinkeena ayay ka mid tahay barasho wanaagsan walaalaha degan ee ku nool magaalo cadna aad iyo aad baan u salaameynaa hawada ayaan salaan kal iyo laab ay soo marnayna intaan isku iman doona kan kula mid waxaan iga tagnaa sida ayo amaan Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh